waaxda saadaasha hawada ee dalkani Kenya ayaa shaacisay in roobkii ka dilaha dalkani Kenya uu u wacday dalka Tanzania sabab ay ku sheegtay cadaadis hoose. waaxda ayaa sheegaysa in xaaladdu ay si ahaan doonto mid qalalan ilaa iyo dhamaadka bisha Abriil, xilligaas oo kadib la filayo in roob culus uu dalku ka da'o. sida laga soo xigtay agaasimaha laanta saadaasha hawada ee dalkani Kenya, Stella Aura ayaa sheegtay in waqti ay qaadan karto ilaa iyo inta dabayluhu ay isku imaanayaan kana helayaan awood ay roobka ugu soo riixaan dalkani Kenya. Roobabka ay sheegtay inay ku haakadeen dalka Tanzania ayna laayihiin cadaadis u soo muquuniya xagga dalkani Kenya. galbeedka dalka Kenya ay waxdu tilmaantay inay ka diidoonaan roobab gubac wata, halka ismaamulka Murang'a iyo Meru ay ka diidoonaan roobab suurtagal ay tahay inay horseedaan dhulgo. dadka deegaanka Bulanga ayaa iyana looga digay inay ka fogaadaan goobaha ay suurtagal tahay inay fatahaada ka dhashaan. dhanka kale, kadib markii warkan ay soo saartay dowladda Kenya, ayaa wasiirka deegaanka ee dalka Tanzania waxa uu sheegay in haddii Kenya ay bixiso madax furasho ay u soo dayn doonaan roobka. waxaana wasiirku uu dalbaday in madax furasho ahaan loo siiyo Lupita Nyong'o oo ah tirisha caan ah oo u dhalatay dalkani Kenya, horeyna ugu guuleysatay abaalmarinta Oscar-ka. sheekadan ayaa si weyn u qabsatay baraha bulshada, gaar ahaan barta Twitter-ka, waxaana dadka Kenyaanka qaarkood ay leeyihiin musuqa dalka ku batay ayaa sababay in roobkii xataa uu u leexdo dalka Tanzania.